السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالي أنيقو waxaan ahay King Solver adigu daawanaysa bal adiga iskayabar nuka kuma aqaanay iskayabar aad noqdo mahadsan tahay oo commentiga igu soo qor magacaaga oo saddexan si magacaaga u soo xuso muuqaalka ku xiga anigu waxaan mar labaad King Solver waxaad iga daawanaysaa King Solver Media marka hore asxaabtaadu la wadaag subscribe gacmaha mataadku u fur commentiga ka bixi hadda ana waxa ay tahay motivation oo dhiirigelin ba ay tahay adiguna waxa laga yaabaa muuqaal aniga aan soo tabay inuu adiga wax badan ka bedelo saacada ka hor YouTube-ka waxa la wareegayay sida biyo soo fatahay oo kale looga hadlayay gabadha la yiraahdo caanka ah Hodan Abdiraxmaan Dheere igama dheer wax dheer looga dargaran maayo Hodan Abdiraxmaan Dheere waxa la yiri fanka ka fiirsatay waa qosle waqti markaas maqlay waxa igu soo dhacay ciyaaryahanku markuu 40 sano gaaro waxa uu noqdaa retire macnaha uu ka fariistaa markaas warbaahinadu waxay yiraahdaan ninkii hebel ahaa oo ciyaaraha ka fariistay hadda fanku marka ma sanad uu leeyahay sanad oo macnaha lagu fariisto ma uu leeyahay anu kale garanay fanka saacad lagu fariisto hadii ay jirto waqti lagu fariisto bal idinku ila soo wadaaga xasan aan samata waan daaweyn wali waa fanaan marka ku soo dhacdo waa tuurta wali laga yaabo kuwa ka daaweyn inay jiraan wali waa fanaanin haddaba Hodan Abdiraxmaan wararka xanta ee suuqa ku jiro maxaa ka jiro ma runba ma beenba baan rabaa inaan idan la wadaago haduu ilaahay yiraahdo haduu wixii gaf iga dhacana hal igu qaato bilaadan baan nahay insaankana gaf waa ka dhaca oo marada way dhici kartaa laakiin marada la soo celiyo calaamadaha la igu tuuro hadda commentada xanafta leh oo qataatada ah nimiyo naga dhaafa intaas baan idinka leeyahay haddaan riyaalatiga dul istaagno horta suuqaan galnay magaaladan galnay xantii wax ka jiraan soo ogaanay waayahay asxaabteeda qaaliga ah horta wax lama kala qarsadee waxna waa xan waxna waa reality soo xagarteen ma caawa xigmad yar ay siinaya oo boojo ah macna waa last 2019 xigma waa update xigmadan waxay tahay run lama helo xan la'aan marka waxa soo xodxodo soo raadisa baad runta ee reality iyo dhabta waxay tahay macna ogaanaysa youtuber badan waa arkay oo xan iyo waxba aan loo joogin ka hadlaya arinta hadda aan dul taagan aan ka hadlay arin kale kama hadlay arinta horta idin sheego gabadha la yiraahdo Hodan Abdiraxmaan iyadoo maskaxdeedu kamaysan garowsan inay ka baxdo fanka laakiin waxa ciyaartoy waxa la siiyaa kaar sama marka la rabo in aad laga saaro qalad galo kaar casba la siiyay dhid calan wada iyo hal mar waxa qabta albatri waa qaladkan ugu weyn haduu calan wada iyo albatri hal mar ay hal mar ku istaajiyaan wayna hambiraga jidita hadii aan idin fududay halkaas asaga ah Hodan Abdiraxmaan waxay soo qabtay laba jaalo laba dignin macna ayaa hor loo soo siiyay waxaana u soo siiyay ninka hadda qaba isagana fanaanka codka macaan Mursal Muuse wada ogtiin waxa uu qabay gabar iyadana fanaanad ah la yiraahdo Qadar Saleemo xilliga uu qabay baa waxa hal jaalo uu siiyay hal dignin gabadha Hodan Abdiraxmaan waxa la socotay in heeso badan isku soo dhawaasho badan ay jireen hatta ay isku dhaceen waliba dagaalka qabow labada gabdhood ee fanaaniinta ah qom ninka la yiraahdo Mursal la ajligiis ama dartiis ugu dambeyn hadda sidee buu roosaha ku siiyay marka ma inuu furo doonaya ma wax kala jiro haddaan idin cadeeyo xanta suuqa ugu waaweyn waxay tahay waxa uu yiri waxaad ogtiin in badan ay u soo haystay iyadoo afkaarteeda iyo erayadeeda iyo suugaanteeda ku qiimeynaysa ku qaada dhigaysa jaceelka ay u qabtay ninkeeda ugu dambeyn waxa uu yiri gabar yahay anigu ma jeceshahay haaway tirmiyaan ku heesi lahaa maqam malaayiin oo Soomaali rag ah oo waliba ka qurxan ka shidan oo ka istil fiican oo ka xikmad badan oo aan ka soo tagay adiga aan ku imaaday misaas baa haday jeceshahay bal dad badan baa xan igu jiraatan kuma jeclee waxaad ii sameeysaa haday jeceshahay fanka ka fariiso waa laba daran mid dooro fanka waa jeceshahay ilmaha ku biilata ninkan waa jeceshahay oo asaga la'aantiis baa meel mugdi ma mari karto saan ku dhahay hadda marka roosahaasna waa u dhacayaa hadii ay tiraahdo anigu fankayga ka go'i maayo marka xanta ugu waaweyn aan maqlay waxay tahay inaysan jawaab siinin oo ay tiri fursad easy aan kaga soo fikiro
balse xanta waxay ku timid maadaama ay Afrika iyo Mareykan ay kala joogaan ama USA waxay isticmaalayeen cod iyo qoraallo oo qaybta messengerka ah qaybta messengerka ay codkii iyo wixii iyo qoraalladii baa gudbay sidaas ayayna waxay ku suurta gashay in xantii anaga inaan soo xodxodano aan soo raasano in anaga ay noo fududaato balse muuqaala isbuucan dhaxdaan soo gelin doono waxaan ku soo dari doonaa reality-ga anagoo dul istaagayna hadda ha iloobin dagaal kasta oo dhac waa la heshiin karaa inay heshiiyaana oo Rosa dib loo celiyo oo labada jaale hore loo siiyay la gato hada yaa sida championka Rosa qaan loo gato in loo gato waa laga yaabaa hadaba by the way muuqaalkii aad buu dheeraadmaan doon inuu halkaas gaaro adiga hadda daawanaya hadii aad soo gaarto hadda halka amareyno waxaan ka codsanayaa muuqaalkan aad share gareyso hadii wiilkan Soomaalida ah oo ku dhashay oo kula geneticalka ah oo kula insiga ah haduu Ilaahay ku roon yahay laag la'aan ka tagin laag la'aan waa ku ceeb hadii kala Soomaha dadka Rosa la siiyay tish baa insan yaa tish dhiid salaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh